بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نسأل أمور الدنيا والدين أما بعد إلى ما تسكره علينا سوري كليي ساكينا أول مرينو أرديدي كوغولستين امتحانكي ماج سندوسيد كالوكون لوكون كوي لواتن سيدا نوم وقت إن شاء الله تعالى ما أنت وحان أول مرين دونا أرديدي كالمي قالين وحين قاري دونا إلى إستيد أردي امتحانكي هوري waxaan galeen insha Allah ta'ala sagaal arday marka waxaan dhigi doonaa insha Allah ardayda kaalimaha galeen waxaan dhigna waa masantiin waxaan dhigna hambal insha Allah sidoo kale horteeda waxa ka muuqato cabitaan aad u macaan badan insha Allah arday kasta oo dareemaya waxa food nagu soo hayso bishii barkaasnayd ee Ramadaan waxaan rajayn doonaa insha Allah waalidiinta ardaydoodii kaalimaha galeen insha Allah ta'ala inay si wanaagsan ugu boon doonaan sidoo kale insha Allah ta'ala ardayda marka lagu yeero magaca la yeeriyo waxaan rajayn doonaa insha Allah si degdeg ah inaan ku imaan doontid aan qaadan hadiidaadana waa sharaf insha Allah ta'ala arday kasta marka lagu yeero magaca maqashid waxaan rajayn doonaa inaan imaan doontid insha Allah sidoo kale waxaan sheegi doonaa ardaydii baaseen hadaan sheegnay ardaydii dhaceen insha Allah waan sheegi doonaa waxaan marka barnaamijka waxaan noo daantiin doonaa barnaamijka waxaa yeeri doonaa ustaadkeena qaaliga ustaad Nuur Cabdullaahi أبو بكر إن شاء الله أرضينا وحنا جندنا نكلو يرو إن لماذا إن شاء الله تعالى كتبنا قادة تهديد هذه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدو ما سنيا أستاذ أحمد سيدا ونأكسن ونوسو بي برنامجك saaka loo fadhiyo halkan saaka waxaan u fadhinaa halkan inaynu abaalmarino ardadii waxa weeyaan ku guuleysatay imtixaankii March 2021 ama imtixaankii Rajab 1442 gaar ahaan Al-Furqan School qaybta la foole ardada kaalimaha galay waxay gaarayaan ilaa iyo 8 arday kaasoo u badan fasalka afraad fasalka afraad kaalinta koowaad waxaa ku guuleystay gabadha la yiraahdo Farxiya Maxamed Cabdi hadayna maqlayso halkaana soo gaarto waa 397 dhibcood bay keensatay boqolkiiba 99 Farxiya Maxamed Cabdi soo gaar yadaari qaado kaalinta labaad fasalka saddexaad waxaa ku guuleysatay gabadha la yiraahdo Khadiija Cabdiraxmaan Cabdullaahi 396 dhibcood boqolkiiba 99 kaalinta saddexaad fasalka afraad waxaa ku guuleystay Ramlo Cusmaan Maxamed 384 dhibcood boqolkiiba 96 hadayna maqlaayaan Khadiija Cabdiraxmaan Cabdullaahi iyo Ramlo Cusmaan Maxamed soo haleelaan si loo guddoonsiiyo abaalmarintooda halka waxa uga baxnay fasalka saddexaad fasalka shanaad arday kaalin galay ma jiro labadii imtixaan ee horena sidaas ay ahaayeen marka shanaad waxaan leenahay isa soo kaba dadaalaysan laakiin kaalimaha ma aydan soo gaarin إن شاء الله تعالى ترتمى صاصا لنا فصل كاللحاد سجنا أرضي كالن قلي متشرو لبدي امتحان هرانا صاصي هايين مركا سنة كانوا دان فصل شناد ياللحاد دال موجي أيام لنا وحايدن هاري الامتحان أو فاينل حارجينينا إن شاء الله تعالى إن بوركس كجفي دونتان فصل كتضوات أيان وجود بينا hal gabar kaligeed ayaa imtixaan kaalin gashay kii horna sidaas oo kale وكأننا واحد مودا فصل كذا يدو الجبر 10 لو بحناي marka waa la dadaalo dad badan oo dadaalaya toddobaad oo ku jiraan laakiin dadaalka la kordhiyo wadahayo fasalka toddobaad yani dad wax baranayo kuma jiraan waa dad dadaalaya runtii aan ogahay laakiin kaalinta lambar ay leedahay boqolkiiba 90 iyo wixii ka sareeya ayaa la rabaa inaad keensato marka Aisha Maxamed Ahmed
ayaa ku guulaysatay fasalka toddobaad waxayna haysataa 83 dhibcood boqolkiiba 92 haddayna maqlayso Caaisha Maxamed Axmed ha soo dhawaato si loo guddoonsiiyo abaalmarinteedii fasalka sagaalaad ama fasalka form 1 oo fasalka koowaad dugsiga sare arday kaalin galay ma jiro ilaa labadii imtixaan hore la soo dhaafay sidaasayna ku socdeen waxaan leenahay sagaalaad dadaala waxa weeyaan form 1 adigoo ah haddii hal qof boqolkiiba 90 keenaya la waayo waa dhibkeeday leedahay afwan waxaan ka booday fasalka 8aad halmaan hadalku ma jiro fasalka 8aad waxaa kaalinta koowaad u gashay gabadha la yiraahdo Hodan Geedo Nuur totalkeedu yahay 84.9 boqolkiiba 94 haddayna maqlayso Hodan Geedo Nuur soo dhawaato si loo guddoonsiiyo abaalmarintii loogu talagalay fasalka 8aad kaalinta labaad waxaa ku guulaysatay gabadha la yiraahdo Sawda Ciise Xasan 82.2 dhibcood boqolkiiba 91 haddayna maqlayso soo dhawaato si loo guddoonsiiyo abaalmarinteedii fasalka sagaalaad horaan u sheegnay saddexdii imtixaan la galay wax weeyaan kaalin aan ma jirto 11aad hal arday oo kaalin galay asaguna ma jiro sanadkan waxaan u gudbaynaa fasalka 12aad ee dugsiga sare ama form 4 waxaa ku guulaystay kaalinta koowaad gabadha la yiraahdo Nimca Ciise Xasan 103 dhibcood boqolkiiba 94 haddayna maqlayso Nimca Ciise Xasan ha ku soo dhawaato halkan si loo guddoonsiiyo abaalmarintii ugu talagalay Al-Furqaan School gaar ahaan xarunta la foolay kaalinta labaad fasalka form 4 waxaa ku guulaystay ardayga la yiraahdo Cabdinaasir Cabdullaahi Ciise 101.7 dhibcood ayuu haystaa boqolkiiba 92 ha soo dhawaado si loo guddoonsiiyo abaalmarintiisa halkaas waxaa ku dhan ardaydii ku guulaysatay kaalimaha fasalada oo dhan waa 8 arday waxaad moodaa lambarkaas inuu aad u yar yahay marka loo eego fasalada tiradooda iyo waxa weeyaan ardada marka qof waxa weeyaan ku diidan kaalinta ma jirto ilaa adiga inaad diidan mooyee marka haddii aad diido adaa iska diiday marka kaalintuna waa sharaf waa wanaag waa dadaal waa maamuus waa qadarin in loo tartamo ayaa wanaagsan qof walba uu iska rabaa laakiin dadaal baa lagu gaaraa man talaba al-ulaa sahara al-layaali ninka raba inuu sareeyo habeen ayuu soo jeedaa waqti ayuu bixiyaa barashada waqtiga aynu gelino aynu ka soo leexano meelaha kale waqtiga aynu ku luminayno intaas waa dadkii guulaystay dadkii waxa weeyaan hooseeyna in la sheego iyadana waa wixii maxaan ku raadaa ballanteenu ay ahayd sanad walba inaynu sheegno wixii hoos u dhacay iyo wixii kordhay intuba si waxa weeyaan ay soo kabaan dadka hooseeya dadka waxa weeyaan sareeyana aynu farxadda marka la wadaagno ayaguna hore ugu sii socdaan ardada imtixaankan ku hartay waa 9 arday weeyaan imtixaankii hore 14 arday ayaa ku hartay kan 9 arday ayaa ku dhacday marka waa dhicitaanka hoos u socda fasalka 3aad iyo 4aad imtixaankii hore iyo imtixaankan ba arday ka dhacay ma leh waxaad moodaa inuu sido koobka ama waxa weeye iskuulka inuu boos weyn uu ka joogaad moodaa fasalka 4aad waxaan leeyahay hore u sii socda dadaalkiinii sii wada insha Allah taala shanaad waxaa dhacay 2 gabdhood la dadaalan leenahay waa maamulku wuxuu yiri daahitaan baa lagu haystaa hadaad xisada hore imaadaan casharadu waxba idinka tagi maayaan imtixaankuna waxa weeyaan waad ku guuleysanaysaan إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد marka waa shahiid ayaa maqan goob joog ba matiina la yiri sadda waa ka soo daahdaan marka soo dhaqsada lixaad imtixaankii hore wax ma ka dhicin
laakiin kan saddex arday ayaa dhacday cidda badarka inaan laga dhammaynaa la rabaa wax la barto okay fasalka toddobaad imtixaankii hore laba arday baa dhacday kan waxa waaye waa isnadiifiyeen baa la yidhi waa isnadiifiyeen maxaa waaye ceebtu waa iska dhaqeen waayo saasaa la rabaa sideedaad sidoo kale imtixaankii hore afaraa dhacday kan waa isnadiifiyeen ayagana ceebtu waa iska dhaqeen saasaa la rabaa maalin walba ceeb joog lama rabo sagaalaad imtixaankii hore afaraa dhacday kanna waa isnadiifiyeen ayagana sidoo kale maasha allah 11 imtixaankii hore hal ardayaa dhacay kan laakiin afar arday ayaa dhaceen saddex arday aan dhihi karnaa hal arday waa arday cusub gadaal ka yimid insha allah taala dadaalanaan leenahay halkaasaan kasoo gabagabaynaynaa fasalka waxyaraba inoo haray asxaabul qish baa noo soo socdaan waxyar nasii suga fasalka 12aad imtixaanka qof dhacay ma jiro imtixaankii horena saasay aayeen waxaad moodaa in ay isu diyaarinayaan maxaan ku rahdaa imtixaankii shahaadiga waa kulley rajadooda aad bay u fiican tahay form 4 sida la sheegay ku cadna imtixaankooda baaraka allahu fiikum dadaal allah idin kordhiyaan leenahay dadkii qishka lagu qabtay aan u gudubno marka waa laba qof waaye dadkaas in la istaajiyo ma u baahna umaleha waa laga dhergi soo ma ya waxaa looga dhergaa umaleha ii sheeg dale meesha lagu arko sooma looxada toorayaal qataray noqdaan sanadkan marka waxa weeyaan dadkaas qisha lagu qabtay fasalka toddobaad oo lagu qabtay qish maadada technology iyo carabi ardaygii ugu yaraa ee qish lagu qabtay abid waa ninkaas soo intaas lee ka hor oo qish waxa weeyaan isha u dhuunta nin dadaalayo oo kaalin galay oo ahaa jiray hadda waxaa moodaa in oo ya mobile baa loo gada ninkan mobile loo gada mobileka in laga xareeyo waayo nin wadaadu ahay oo dadaalayo marka halkaa mar waa ka dhacday waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu soo kabi doono bal waxay ahayd in laga qaleeyo sida sharciga ay tahay ya xitaa xuduudda ma aragtay sharciga islaamka qofkii wanaag lagu barto hal maalin le haddii ay ka gashay sharcigu wuxuu qabaa in laga qaleeyo wixii tacsiir oo kale ah ya marka dhib male waa cadaaladda kugu dhacdaan leenahay imtixaanaadka soo socda insha allah dadaal isagana waxa weeyaan saddex maadamiya ingiriis iyo taariikh iyo labada maado iyo chemistry lagu helay marka waa calaanay u tahay si uusan mar dambe ugu noqon insha allahu tacaala waan u hambaliyaynaynaa ardaydii guulaysatay gebigood iyo intii dhacdayna waxaan leenahay soo dadaala waxaa intaa loo sheegayo in laidin nacay ma aha وبقي الود ما بقي العتاب إن الله أنت عنانت جرتو والدين جعل جاي وحال رواين هرا وسي سمعتان ودداشان يا الرواء تفتان ما شاء الله جزاكم الله خير ما سنتين دقيسين وناكسن كمان معمولك معلمين في أرددا كل وانا ما هذا علينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاسوحنا الأستاذ نور عبد الله أبو بكر wixii dadaan saadmeeyay laakiin insha Allah taala imtixaanka soo socda oo la gali doono bishan May dhaxdeeda la gali doono ardayda dhaca ka war markaas waxa waaye fasal oo ka haray sanadkan dib soo bilaaba imtixaanka soo socda arday kasta waxa muhiim ah inaad dadaasho imtixaanka soo socda ardayga dhaco wax cudurdaar ama laambo hadda ka dhacay fasalkaaga joogtamo laakiin imtixaanka soo socda hadda dhacdid ugu fasalkaaga joogaysa insha Allah مجرى إذا فوز امتحان سودو لكن وحلو باهي هنا دلاشان تداركو مروا لبعض موران تداركو مروا لبعض ولو باهي إن شاء الله أدرى كل جدنا رسالة نور معلمين تا برنامجكي حوق يسنا ويساني وحير أو تصالينا بس أيام كدريا إن شاء الله تصالة اسمه هو هاي سيد أهل الجير إنسو مرلي امتحانك أرضيدا وحي دريبي كران تصالة هبك أو صال haddii la dadaalo habka uu soconayo ee qofku ay uga baxayso dhibaatada iyo haddii la dadaali waayo waxa imaanaya imtixaankii noogu horeeyay waxaa dhacday 37 arday waa la iscanaantay ardaydii waa la iscanaantay macallimiintoodu insha Allah waxaa timid kii ku xigay inay yimaadaan 14 meeqa meeshaas ka baxay حساب وين مالتي آخرتي
haddii shib la iska dhigi lahaa ka warram oo maaragtay waa dhacday shib waxba oon midkii wanaagsanna aan la abaalmarin lahayn waxay noqonaysaa wax iska oon maaragtay macno lahayn laakiin hadda 37 hadday 14 timid waxaan u maleynayaa meeshaas inay ka baxday 20 iyo dhowr arday tii ku xigtay waa tan hadda aan joogno saddexaad waxaan u maleynayaa inay 9 oo meeshaas marka intii hore ay qaar aad u badan ka baxeen wax cusub ay marka soo galeen booska dad cusub booskii ay dadkii hore ka baxeen ay dad kale soo buuxiyeen laakiin dadkii hore marka la fiiriyo waxaan isleeyahay 4 ay noqonayaan markii la fiiriyo kuwa cusub ee hadda daaqada ka soo galay markii laga daayo dadkii hore ee maaragtay ee ku socotay waarada iyo maaragtay dardargelintu inay noqdeen 4 marka waxa loo baahanyaa sidaas waa ardayda ha ka fogaadaan sheegitaanka dhawaaqa dambe ha laga fogaado midka hore ha lagu dadaalo oo ah in wax lagu helayo iyo ammaan iyo wanaag iyo horu socod niyadiisa qofka ay u baxayso insha Allah taasna waxaan rajaynaynaa inay ardaydu qaadan doonaan ka bixi doonaan waxa ay ku soo celinayaan ee xun ee maaragtay ay jecel yihiin inay iska tuuri doonaan rajaynaynaa insha Allah barnaamijkeena insha Allah waxaan soo gabagabaynaynaa intaas iyo dadaal kan ugu dambeeyana hadda macallinku waa sheegay kan canaan iyo waana iyo maaragtay macallimiintaadu inay ku dhinac galaan uu leeyahay laakiin midkan dambe hadda waxba male marka waxaan isleenahay inta yar oo hartay yaan la seexan hal dadaal ay insha Allah barnaamijka xigaan arki doona insha Allah wixii ka soo baxay Ilaahay gaarsiiyo intaas ay noogu dhantahay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh هدية تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها